xiisadda dagaal ee u dhaxaysa dalalka Itoobiya iyo sidoo kale Eritrea ayaa marba marka ka dambaysa waxa ay noqonaysaa mid cirka isku sii shareerta. Labada dal ayaa maalinba maalinta ka dambaysa waxa ay ku sii dhowaanayaan wadada dagaalka. Eritrea ayaa maalmo ka hor ku dhawaaqday ka bixitaanka urur goboleedka IGAD, taas oo dad badan ay ku sifeeyeen inay tahay barbilowga dagaal military oo dhexmara Itoobiya iyo sidoo kale Eritrea waxay ku tilmaantay ka bixitaanka ururkan in ay tahay guul istiraatiijiyadeed iyo sidoo kale kor u qaadista qiyamka iyo nabadgelyada dowladda Eritrea. Waxayna ku tilmaantay in ururka uu yahay mid aan ka shaqaynaynin danaha markaasi dalalka ku midaysan urur goboleedka IGAD. Waxayna tilmaantay inuu yahay mid hal dhinac ka raran. dalalka ururkan ku midaysan qaybtood waa kuwa ay xasarad iyo sidoo kale dagaal u kala dhaxeeyo dowladda Eritrea, waxaana ka mid ah dalalkaasi Djibouti iyo sidoo kale Ethiopia oo xarunta ururkan ay ku taalay iyo sidoo kale iyada oo ah guddoonka ururkan. Waxa ay markaasi Eritrea u aragtay inuu yahay mid aan go'aamin karin go'aanka mustaqbalka iyo midka nabadgelyo ee gobolka, waxayna tilmaantay inuu yahay mid hal dhinac markaasi ka raran. Eritrea waxay sheegtay in go'aankeeda ay ku sifaysay isla markaana ay ku tilmaantay inuu yahay mid ay ku ilaalinayso amnigeeda iyo sidoo kale madax-bannaanideeda. urur goboleedka IGAD ayaa warqad ka daba diray Eritrea waxaana ku tilmaamay ururka inay tahay ka bixitaanka Eritrea mid si weyn u dhaawacaysa ururka iyo sidoo kale dhisnaanshiyaha ururka inuu sii jiro. Haddaba ka bixitaanka Eritrea ururkan waxay sare u qaaday xiisadda dalalka Itoobiya iyo sidoo kale Eritrea. Labada dal ayaana maalmihii ugu dambeeyay waxa ay ciidamo ku daabulayeen xadka ay wadaagaan labada dal. Itoobiya ayaa goor hore waxay wacad ku martay in ay xoog ama xeelad mid kula wareegi doonto dekedda Casab oo ay tilmaantay inay tahay mid ay iyadu leedahay milkiyadiisa xaqna ay u leedahay. Laakiin Eritrea waxay tilmaantay inay yihiin ku xadgudub madax-bannaanida iyo sidoo kale qarannimada jamhuuriyadda Eritrea. Waxayna tilmaantay inaysan Eritreaanku gacmaha isa saaran doonin Etoobiyaankana ay si weyn u yaqaanaan Eritreaanka. casharadii horey aan u bixinay kuwa ka daran ama la mid ah ayaan bixin doonaa ay Eritreaankuna wacad ku mareen. Labada dal waxaa hadda markaasi gudaha Itoobiya ku dhaxmaraya dagaal ay markaa wakiilo ka yihiin ciidamada jabhadda TPLF iyo sidoo kale kuwa Faano. dhinaca kale Itoobiya waxay wajahaysaa cadaadis kaga imaanaya dhinaca Suudaan. Itoobiya ayaa goorsi horeysay waxay ogolaatay in xogaga RSF ee Suudaan ka dagaalamaya ay saldhigyo ka sameystaan xadka labada dal. Laakiin taas beddelkeeda mar kale Suudaan ayaa qaaday tallaabo culus iyadoo xadka Eritrea iyo sidoo kale Suudaan iyo Itoobiya ay wadaagaan oo gudaha markaasi dalka Suudaan ay fariisimo ka sameysanayaan ciidamada dowladda Eritrea, halkaas oo ay ka difaaci doonaan jabhadda RSF haddii loo baahdana ay duulaan military kaga qaadi karaan gudaha dalka Itoobiya. Haddaba macluumaadkii iyo sidoo kale xogihii ugu dambeeyay xiisadda labada dal, ciidamada xadka lagu daabulayo iyo dhaqdhaqaaqyada soconaya iyo diyaaradaha Itoobiya oo duqeymo ka fulinaya xadka labada dal. Habeenadii ugu dambeeyay ilaa iyo xalay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Itoobiya ayaa duqeymo ka fuliyay xadka labada dal, waxaana ka dhashay khasaare kala duwan. Haddaba diyaaradaha Itoobiya waxay beegsadeen TPLF mise ciidamada Eritrea? Macluumaadka warbixintan ayaan kula wadaagi doonaa. soo dhawow daawade si aan kula wadaago dhammaan xogahaasi. noo subscribe garee channelka oo nagu soo biiro calaamadda subscribe-ka inoo taabo, muuqaalka noo like garee, aragtidaadana qaybta faallada ku dhiibo. haddii labadan dal ee Itoobiya iyo sidoo kale Eritrea ay dagaalamaan, yaa ku guuleysan doona dagaalka? Eritrea ayaa ku guuleysan doonta sidii hore u dhacday mise Itoobiya ayaa ku guuleysan doonta? qaybta commentiga nagula wadaag aragtidaada. waa hagaag muddooyinkii ugu dambeeyay waxaa taagneyd xiisadda colaadeed ee u dhaxaysa dalalka Itoobiya iyo sidoo kale Eritrea. Itoobiya iyo Eritrea waxaa lagu xasuustaa dagaallo hore u dhexmaray oo libinta guusha ay raacday dhinaca Eritrea, waxaana ay dagaaladaasi ka soo bilaabanayaan kadib halgankii xornimo-doonka Eritreaanka oo ugu dambeyn miro dhalay isla markaana ay ku heleen jamhuuriyadda Eritrea. kadibna waxaa dhacay dagaallo dhowr ah oo ku saleysan xadka labada dal, waxaana intiiba ku guuleystay dowladda Eritrea oo Itoobiyaanka jab kala duwan ayaa ka soo garay dagaaladaasi. marka la fiiriyo taariikhda dagaalada Itoobiyaanku galeen, inta badan waxay ahaayeen kuwa ay bilowga iyagu lahaayeen, dhammaadkana natiijo aysan mahdinin ay kala kudmayeen oo markasta ay ku jabayeen.
haddaba waxaa mar kale cirka isku shareeraysa xiisadda colaadeed ee Itoobiya iyo sidoo kale Eritrea waxaana Eritreaanku ay u muuqdaan in ay diyaar u yihiin dagaal kasta oo ay la galaan Itoobiyaanka tan iyo markii xornimada ay heleen Eritreaanku waxay ahaayeen kuwa ku jira heegan military iyaga oo aaminsanaa in saacad kasta ay duulaan kala kulmi karaan Itoobiyaanka tirada badan ee markaasi isku mahdiyay jira badnaantiisa in uu meel ku gaari karo haddaba maalmahan la soo dhaafay ama toddobaadkii aynu ka soo gudubnay xiisadda labada dal ayaa saramartay isla markaana ciidamadii ugu badnaayay labada dal waxay ku daabulayeen xadka Eritrea ayaa waxay soo saareysay dufcado military oo kala duwan waxaana dhammaan loo daabulayay xadka waxaana soo baxayay muuqaalada madaxweynaha Eritrea Siyaas Afwerki oo xadka labada dal ee Itoobiya iyo sidoo kale Eritrea ku sugan isagoona halkaasi ku sameynaya kormeer iyo indhayn sida ay markaasi heegan kasta ugu jiraan ciidamada dawladda Eritrea oo iyagu markaasi aaminsan in markasta dagaal uu dhexmari karo iyaga iyo Itoobiyaanka Abiy Ahmed dhankiisa waxa uu markaasi tababaro u soo xirayay ciidamo kala duwan oo aad u fara badan kuwaas oo ka soo jeeda intooda badan qowmiyadda Oromada waxaana inta badan loo daabulayay xadka ay wadaagaan Itoobiya iyo sidoo kale Eritrea gaar ahaan dhinaca Anfarta ay fariisimo ka sameysteen laakiin goorsi horeysay jabhadda TPLF ayaa fariisimo military oo Itoobiyaanka ay ka sameysteen deegaanada Anfarta ay cagta mariyeen waxaana TPLF ay tilmaantay inay yihiin ciidamo loo diyaarinayay in lagu burburiyo iyaga isla markaana dhulkooda lagu weeraro dadkoodana lagu laayo haddaba Eritrea waxay haysataa marka la fiiriyo kaarar kala duwan iyo fursad dahabi ah waana in Itoobiya gudaheeda ay ka socdaan dagaal kala duwan oo u dhaxeeya jabhadaha Faano oo dagaal kula jirtay ciidamada Itoobiya Abiy iyo sidoo kale TPLF oo dhinaca oo iyana dagaal kula jirta dawladda uu hogaamiyo Abiy Ahmed sidoo kale soo baxday jabhad markaasi dhinaca Anfarta ah oo iyana dagaal kula jirta Abiy Ahmed dhammaan marka la isku daro jabhadahan iyo sidoo kale kacdoonka iyo guuxa bulshada Soomaaliyeed ee dhulka Soomaali galbeed oo iyagu markaasi dareemaya in ay u soo bidhaamayso fursad dahabi ah waxa dhammaan marka la isku soo wada daro ay noqonayaan cadaadis ka jira gudaha Itoobiya iyo sidoo kale fursad dahabi ah oo Eritreaanku haystaan Eritrea waxay si xad dhaaf ah markaasi u hubeynaysaa jabhadaha Faano iyo sidoo kale TPLF si meesha uga saaraan maamulka Abiy Ahmed waxaana sidoo kale qayb ka ah dawladaha Masar iyo Suudaan oo iyada tabar badan aan lahayn laakiin markasta doorbidaysa in meesha laga saaro nidaamka Abiy iyo sidoo kale guud ahaanba taliska Itoobiya awood badan ee waqtigan jira waxaana Masar iyo Suudaan ay u arkaan fursad dahabi ah in nidaamka Abiy uu meesha ka baxa Suudaan iyadoo ka caraysneed biyo xireenka wabiga Niil mar kale nidaamka Abiy ayaa waxa uu markaa u durbaantumaya jabhadda maleeshiyaadka RSF ee Suudaan ka dagaalamaya taas waxay Suudaaniyiintu u arkeen inay tahay cadaawada Itoobiyaanku ka sameysanayaan Suudaaniyiinta waxayna Suudaan wax kasta ku bixinaysaa sidii meesha loo dhaafin lahaa Abiy iyo sidoo kale nidaamkiisa Masar waxa ay door muuqda ku leedahay xiisadda labada dal waxayna markasta barbar taagan tahay Eritreaanka iyo sidoo kale jabhadaha ka dagaalamaya gudaha haddaba Eritrea ciidamo xadaaf ah iyo markaasi xadka labada dal geysay Itoobiya sidoo kale waxaana habeenno ka hor halkaasi ka dhacay duqeymo aad u culus oo ay fuliyeen diyaaradaha droneska aan duuliyaha lahayn Itoobiyaanka kuwaas oo burburiyay sida markaasi Itoobiyaanku sheegeen fariisimo ay TPLF halkaasi ku lahayd laakiin Eritrea waxay sheegtay in mar kale duqeyn xadgudub ah ay sameeyeen Itoobiyaanka laakiin ay ka shalaayi doonaan oo ay markaasi bixin doonaan Eritreaanka jawaab aysan mahdinin Itoobiyaanka haddaba Eritrea mar kale ay xadgudub sheeganaysaa haddana mar kale waxay ku hanjabaysaa inay jawaab bixin doonto xiisadda labada dal marba marka ka dambeysay cirka ay isku sii shareeraysaa taageero kala duwan ay helaysaa Eritrea Sacuudiga ay taageero dhaqaale iyo sidoo kale mid military ba ka helaysaa sidoo kale dalalka Masar iyo Shiinaha si weyn ay u garab taagan yihiin oo fursad dahabi ah u arkaan Itoobiyaanka dhankooda taageero kala duwan ay helayaan haba ugu badnaatee Imaaraadka oo isagu taageero la garab taagan Itoobiyaanka yaad isleedahay haddii ay labadan dal dagaalamaan waa uu ku guuleysan karaa natiijada dagaalka iyo guushana waa uu hanan karaa Itoobiya ayaa ku guuleysan karta mise Eritreaanka ayaa mar kale Itoobiyaanka ka guuleysan doona qaybta faallada nagula wadaag aragtidaada